Puntland ayaa si degdeg ah uga hortimid heshiis kasta oo Turkiga loogu oggolaanayo inuu ka kalluumaysto ama ciidamo uu keeno xeebaha ay maamusho, iyadoo ku tilmaamtay arrintaas mid ka hor imaanaya dastuurka iyo nidaamka federaalka. Maamulka Puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan sharci u lahayn inay gasho heshiisyo la xiriira kheyraadka dabiiciga ah iyo amniga deegaanada ay Puntland maamusho. Waxay sidoo kale ku adkaysatay inay iyadu xaq u leedahay go'aamida cidda ka faa'iidaysanaysa kheyraadkeeda. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa hore u kala saxiixday heshiisyo iskaashi oo la xiriira dhinacyada difaaca kheyraadka dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, sheegashada ah in heshiisyadaasi ay si toos ah u quseeyaan xeebaha Puntland ama Somaliland, ama in Soomaaliya ay qorsheynayso in Turkiga ay ku wareejiso xeebaha la is qoray, weli ma jiraan caddeymo rasmi ah oo si madax bannaan u xaqiijinaya arrintaas.